okay calooshin iska jartaa rabtaa waa ku daashay saamashiin ugu ordaysay waxa isleedahayba calooshan meel uma socoto ma lagugu dhalayaa isleedahay haddaba maya haddii aad rabtid inaad iska shiishid xeertaas haddaba daawo videogan adiga arki doonee السلام عليكم أصحابتي كسر دوادا Somfit channel maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago exerciseyo loo yaqaano barbell complexes exerciseyadan waa fat loss xeerta ayay ka shiili doonaan exerciseyadan waxa codsaday asxaab kamid ah asxaabteena channelka ku xiran ama subscriberskeena kamid ah exerciseyadan hadaba aad ay effective u yihiin hadii aad ku daashay inaad mashiinka ku carartid mar walba oo aad arki weysay wax isbedel ah exerciseyadan ayaad si isku xiga u sameyn doontaa hadaba exerciseyadan mar labaad hadii aan ku sheego waxa la yiraahdo barbell complexes sidoo kale videoga dhamaadkiisa waxaan kula wadaagi doonaa inta waqti aad sameynaysid inta wareeg lagaaga baahan yahay inta aad nasan doontid waxaas dhan ayaan kula wadaagi doonaa videoga dhamaadkiisa hadaba exerciseyadan markii aad bilowdid kadib adiga iyo waxa la dhahay bahashi xeer la dhahay waa ismaac salaameyn doontaa aan guda galno okay exercise ayaan guda galaynaa waxaan loo yaqaanaa birtan aan ujeedin ayaan ku sameynaynaa waxaan loo yaqaanaa barbell complexes waxaan ku bilaabaynaa marka ugu horeysa shoulder press waxaan ka sameynaynaa 6 reps waxaa ku xigaya front squat oo 7 ah waxaa ku xigaya isla markii soo raacay barbell row oo 8 ah isla markii waxaa ku xigaya deadlift oo 9 ah waxaan ugu daba marsiinaynaa back squat oo 10 ah waxaa loo yaqaanaa barbell complexes wareegga sidaas ugu soconaysa hadaba exercise sidii isku xigaan yani waa loogu talagalay haddii aad wax ka bedesho way kugu adkaanaysaa ma dhameystirayso okay guda galno hadaba exercise ayaan guda galaynaa sidaad u jeedid waxaan ku bilaabayaa military press ama standing barbell shoulder press waxaad ka sameyn doontaa exercise kan 6 reps hadaba mar walba exercise kan sameynaysid koorkaaga taayta ahaad lugahaaga ha taagnaadaan ha isu nuuxjinin dhabarka isticmaalin isla markii waxaad ku xijinaysaa 7 reps oo front squat ka hadii ay shoulderska ku xanuunayaan ama suuf birta iska xiji ama gacmaha sidan ugu qabso 7 ayaad ka sameynaysaa front squat ka markii aad 7 ka sameysid sidaad u jeedid 7 ayaan ka sameynayaa isla markii waxa soo raacaya barbell row hadaba markii aad soo dhigaysid iska ilaali birta ku xirnaato ana hadii ima xirneen laakiin ka taxadir in case birta iska xir isla markii barbell row ayaan waxaan ka sameynaynaa 8 reps 8 markii aan ka sameyno barbell row ma nasanayno isla markii waxaan ku xijinaynaa 9 reps oo ah deadlift sidaad u jeedid waxba ma nasanin sideeda ayaan u sii wadayaa hadaba markii aad sameynaysid deadliftiga iska ilaali spine-kaaga marnaba halaabin ama lafta dheer ee dhabarka halaabin ha toosnaado dhabarkaaga sidaan u sameynayo kale markii aad dhameysid 9 xabo aad ka sameysid ama tirada 9 aad ka sameysid deadliftiga meesha ugu adag hadaba waa meeshan markii aad kor u soo qaadaysid aad back squat ka keenaysid hadaba ahaado culays aad kor u soo qaadi karto iska ilaali exercise ugu dambeeyo ah barbell back squat ayaa asagana waxaad ka sameynaysaa 10 reps saas ayaa la rabaa asxaabta waa isku wareeg weeyaan ma nasanaysid hal mar markii aad dhameyso ayaad nasan doontaa aan kula wadaagi doonaa nasashada waqtiga iyo inta wareeg aad u baahan tahay intaba hadaba sidaas ayaa lagaaga rabaa exerciseada inay iskugu xigaan waxba ha ka bedelin orderka ama exerciseada sida ay iskugu xigaan sidii aan u sameey waa sida aad u jeedaa okay waad u jeedeen barbell complexes exerciseada saan u kala hormarinay shoulder press ama military standing press taa u taqaana baan ka bilaabay isla markii front squat aan ku xijiyay front squat macquul inay qaarkiin ku adkaato waayo waxay u baahan tahay yani shoulderkaaga qaybahan hore inay dhisan yihiin si weightka oo saaran ay u celin karaan okay front squat-ka hadduu kugu adkaado xitaa isku day yani gacmaha inaad saan ugu qabsato haddii shoulderka inaad xanuunaya aad celi mayso isla markii waxaa soo raacayay barbell row oo deadlift ku xigo oo isla markii ugu dambeynayo barbell back squat exercise sidaad u jeedid waxaa nasanaya ma laha waa isku xijinaysaa kadib waxaa nasanaysaa ugu badnaan 2 daqiiqo ka badan inaan nasato looma baahna teeda kale meeqa reps ka sameynay kan ugu horeeya waxaad ka sameynaysaa 6 kan ku xiga 7 ka sameynay
exercise ku xiga waxaad ka samaynaysaa 8 kan ku sii xiga 9 ka samaynaysaa kan ugu dambeeyana 10 ka samaynaysaa okay waqti ilaa intee laagina samaysaa lagaaga baahan yahay exercise markii aad samaynaysid lama baahna sida cardio oo kale ina an hour 40 minutes waxaas inaad ku qaadato ugu badnaan 20 daqiiqo ayaa laga rabaa inaad samaysid 20 daqiiqo waxaa laga rabaa inaad ku dhamaysid 10 wareeg okay waad samaynaysaa exercise-adana samaynaysaa 2 minutes ugu badnaan nasanaysaa waa ku laabanay 10 wareeg adigu ugu badnaan okay weight-ka sidee u dooranaysaa ani hadda waxaan ku samaynaya 10 kilo okay waxaa laga yaabaa inta badan marka ugu hore 10 kilo fududahay laakiin bacdama aad sii wadid yani wareeg ku xig uu kasii adkaanaya waayo waqti badanaa nasanaysa ma laha weight-ka waxaad ku bilowdaa haddii aadan birta hore u qaadi jirin birta kaligeed ku bilow ayada kaligeeda 20 kiila haddii aad hawaa jimka soo qaadaysay oo barbell complexeskan ay kugu cusub yihiin aadan weli hore u samaynin waxaan kugula talin lahaa inaad ka bilowdid 5 gasho ku bilow arag yani inaad 20 daqiiqo ku dhamayn kartid 10 wareeg okay exercise marka waxaa la rabaa weekii ugu badan haddii aad si fiican u samaynaysid weekii ka badan hal mar ka badan maba samayn kartid progress si aad u samaysay waxaa kaa rabaa weekii ama inaad weight-ka wax yar ku kordhisid ama waxaan kaa rabaa yani waqtigii inaad wareegyo badan ku samaysid tusaale aan dhahno isbuuc ugu horeeyay tusaale 8 wareeg aa 20 daqiiqo ku samaysid isbuuca kale waxaa kaa rabaa 9 wareeg ama 10 wareeg inaad ku samaysid okay haddii aad dareentid exercise-da marka aad samaynaysid wadnahaaga inuu aad u garaacmo ama aad isdhahdid wadnaha inuu kaasoo dhex bixin ama jastigaaga kasoo bixin aad dareentid alla yaabin wax loogu talagala waayo haddana exercise-dan waa fat burning oo aan caadi ahayn effective isbedel ayaa ku arki doontaa weight-kaas okay thank you very much haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan taageer nagu soo biir waxyaabo badan aan kala faa'iidi doonaa subscribe haddii aad videoga ka heshay like and comment waxaa jeceshiin weydiiya asxaabta comment sectionka adinka iskale channelka exercise-dan fat burning-ka aad ujeedin dad iga codsaday oo ka mid ah subscribers-keena ayaga u sameeyey channelka adinka iskale waxaa jeceshiin soo weydiiya thank you very much